waxaa si rasmi ah magaalada Lascaanood ugu soo degay kumanaan kun oo askari oo ka tirsan ciidamada qaaska kuwaasi oo ka kalimid magaalada Boosaaso iyo magaalada Garowe kuwaasi oo si rasmi ah u soo bandhigay ciidamada qaaska ee maanta lagu soo bandhigay magaalada Lascaanood tani waxay keentay xiisad amni iyo feejignaan weyn ee ka dhex muuqatay gudaha magaalada ila wareedo amni ah qiijin ciidamada la keenay magaalada Lascaanood ay muujiyeen awood ciidan oo muuqda kuwaasi oo la filayo ka qayb qaataan sugidda amniga madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cali Masaarka hogaamiye waqooyi bari Cabdiqaadir Firdiye bulshada deegaanka ayaa lagu digay inay ka fogaadaan meelaha ay ciidamadu ku sugan yihiin isla markaana raaco tilmaamaha amniga si looga hortago waxyaalo kasta oo khatar ku amniga maadaama maalinta Britain la filay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu ka soo dego magaalada Lascaanood saraakiisha amniga ayaa sheegay in talaabadan ciidankan ay yihiin kuwa lagu hagaajinayo amniga magaalada isla markaana lagu ogaanayo nabadgelyada deegaanka